tartanka gabayada ee silsiladda nabadda oo ay iska kaashanayaan Midowga Yurub iyo Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed ayaa si rasmi ah u bilowday. Haddaba dad badan ayaa isweydiinaya maxaa astaan u ah gabay wanaagsan. Magacaygu waa Cismaan Cabdullaahi Guure, waxaan ka mid ahay guddiga garsooreya tartanka suugaanta. waxaa laga rabaa cid kasta oo tartanka ka qaybgelaysa ama suugaan ku tartamaysa kow waa inuu qaafiyada ilaaliyo, marka labaadna miisaanka, marka saddexaadna mawduuca uu ka hadlayo iyo ujeedadiisa. saddexdaas markay ku saxnaato ayaa la qiimeyn karaa suugaantaada. diyaar ma tahay? haddii ay jawaabtaadu haa tahay, sidaan ayaad uga qaybgeli kartaa. waxaa laga doonayaa inaad gabayga ku qorto luqadda Ingiriiska ama Soomaaliga adiga oo adeegsanaya hal abuurkaada kuna cabiraya mustaqbalka nabadda Soomaaliya. mawduuca laga raba inaad si gaar ah diiradda ugu saarto gabayadaada ayaa ah aragtidayda fog ee nabadda iyo barwaaqada. guulaystaha koobaad waxa uu heli doonaa abaalmarin lacageed oo dhan $1,000, halka tartamayaasha kaalimaha labaad iyo saddexaad la siin doono $500 iyo $250 sida ay u kala horeeyaan. haddaba si aad uga qayb gasho ayaa laga doonayaa inaad akhriso qoraalka gabayada ee asalka ah ee aan la daabicin, adiga oo ka hadlaya higsiga nabadda iyo barwaaqo. soo dir muuqaal fiidiyo ah oo aan ka badnayn 2 daqiiqo. waxaad ku soo diraysaa iimaylka silsiladda nabadda 23@gmail.com ama qaab WhatsApp ahaan ah ugu soo duub lambarka 062 haddaba wixii faahfaahin dheeraad ah ee la xiriira tartanka booqo Twitterka Midowga Yurub @EU Soomaaliya ama Facebooka EU Dal Soomaaliya.